wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada warkii caalamka wadabada aan idinku haynana waxaa ka mid noqon doona gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya oo eedeymihi ugu cuslaa u jeediyay waa madaxweyne Farmaajo iyo Fahad Yaasiin shirarka ka socda magaalada Nairobi oo la filayo in waji cusub ay siyaasadda Soomaaliya ka bedelaan wuxuu ka yiri madaxweynihii hore ee Soomaaliya Xasan Sheekh Maxamuud doorashadii shalay ka dhacday magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe wadabada kale aan yahaynana waxaa ka mid noqon dagaalkii ka socday dalkaasi Itoobiya oo si xoogeystay iyo jamhadda Tigray oo sheegtay inay iska caabin doonto ciidamada halkaasi kula dagaalamaya dowladda federaalka Itoobiya iyo waliba maleeshiyaadka maxarada dagaalkaasi la sheegay inay soo galeen madaxweynaha Mareykanka ee dooranna waxa uu shaaca ka qaday inuu dhammaan baabi'in doono waxyaalihii madaxweynaha Mareykanka ee hore ee Donald Trump uu saxeexay qodobada iyo qodobada kale aad ku maqli doontaan halka nagala socotaan waa Abshir Show channelkan ku leeyahay YouTube iyo waliba page-kayga Abshir Joker ku soo dhawaada warkii oo dhan aan ku bilaabanay gudoomiyaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Senator Cabdi Xaashi Cabdullaahi ayaa eedeymo culus dusha kaga tuuray taliyaha hay'adda nabadgelyada Soomaaliya Fahad Yaasiin Xaaji Daahir iyo waliba nin kale iyo waliba madaxweynaha Soomaaliya Maxamed Cabdullaahi Farmaajo Cabdi Xaashi ayaa waxa uu shaaca ka qaday inaysan marnaba xaq u lahayn dowladda federaalka Soomaaliya waa madaxweynaha iyo ra'iisul wasaaraha in ay soo magacaabaan xubnahaas isagoo oo sheegay in aan laga tashan waxa uu sidoo kale weerar afka ku qaaday taliyaha hay'adda nabadgelyada Soomaaliya Fahad Yaasiin oo shaaca ka qaday inuu yahay nin faragelin ku haya xildhibaanada aqalka sare iyo aqalka hoose ee lagu soo dooran rabo magaalada Muqdisho ee ka soo jeeda Soomaaliland Cabdi Xaashi ayaa waxa uu intaasi ku daray in gabi ahaanba uu ka soo horjeedo waxkaasi isagoo oo sheegay in loo madax banaaneeyo waxaan u joognaa midnimo iyo dad Soomaaliyeed oo isku darsama iyo waliba dadka Soomaaliyeed oo heshiiya marna khilaaf ayuu Cabdi Xaashi waxa uu intaasi ku daray in Soomaaliya u baahan tahay in dadka Soomaaliyeed gacmaha ay qabsadaan khilaaf loo horseedin way wax walba ay isku dayayaan ama waxay rabaan wax kasto ay ku soo laaban karaan xildhibaanana ay ku soo saareen kan iyaga taageero ah ayuu Cabdi Xaashi Cabdullaahi oo warbaahinta kula hadlay magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka Soomaaliya maalmihii ugu dambeeyay waxaa ka socday shirar kala duwan magaalada Muqdisho oo looga soo horjeedo ama la isku khilaafsan yahay dowladda Soomaaliya xubnaha soo magacaawaday ee ka soo jeeda baarlamaanka Soomaaliland kuwaas oo xubnaha ka noqonaya doorashada lagu wado in Soomaaliya ka dhacdo maanta magaalada Muqdisho waxaa ka dhacay kulan weyn oo looga soo horjeedo shirkaasi oo la sheegayo in ay ka taageersan yihiin Senator Cabdi Xaashi inuu ku matalo gobolada waqooyi oo isaguna uu soo xiro magaalada Nairobi ee caasimadda dalkaasi Kenya waxaa ka socda shirar kala duwan halkaas oo xubnaha musharaxiinta iyo mucaaradka xilligan oo kale marka la gaaraba ay ka soo bilaabaan ololahooda Xasan Sheekh Maxamuud oo ku sugan magaalada Nairobi ee caasimadda waddankaasi Kenya ayaa la soo sheegayaa inuu halkaasi ka wado barnaamijyo uu kaga soo ololihiisa mucaaradnimo oo ku wajahayo sidii ay dowladda Soomaaliya inay aysan ka guuleysan lahayn doorashada soo socota waxaa la soo sheegayaa in hadda magaalada Nairobi uu ku sugan yahay madaxweynaha Jubbaland Axmed Madoobe Cabdikariin Guuleed iyo waliba xubnaha ka tirsan mucaaradka Soomaaliya oo la filayo iyo waliba hogaamiyaha xisbiga wadajir Cabdiraxmaan Cabdishakuur Warsame dowladda dalkaasi Itoobiya ayaa waxa ay shaaca ka qaaday inay sii wadi doonto dagaalka halkaasi ay kula jirto dowladda waa jamhadda TPLF waxaa la soo sheegayaa in ay dowladda Itoobiya ay xarumo badan la beegsatay iyadoo oo sheegtay dowladda Itoobiya inay soo aftari doonto xubnaha Tigrayga ka tirsan ee TPLF loo soo gaabiyo ee xukuumadda dalka waqooyi ku yaal dalka Itoobiya gaar ahaan gobolka Tigray ayaa waxaa la soo sheegayaa inay iska caabin badan kala kulmeen ciidamada dowladda federaalka Itoobiya oo garabsanaya maleeshiyaadka amxarada waxaa la soo sheegayaa in gabi ahaanba halkaasi uu maalmihii ugu dambeeyay dagaalkii ugu qadhaadha uu ka socday shalay iyo waliba darhad waxaa la soo sheegayaa in halkaasi khasaare badan uu ka dhashay meydad badan oo ka tirsan ciidamada dalkaasi Itoobiya ayaa waxaa la gaarsiiyay gobolka amxarada kuwaas oo la sheegayo in waxyeello badan ay ka soo gaartay dagaalkaasi ururka TPLF ee xukuumadda Tigray ayaa waxaa la soo sheegayaa in ay hadda haystaan hubkii ugu xoogganaa ee Itoobiya halkaas oo gantaalo xooggan ay la beegsanayaan baa la soo sheegayaa ciidamada dalkaasi Itoobiya waxaa la soo sheegayaa in ilaa hadda gobolkaasi uu ka holcay dagaal xooggan oo u dhaxeeya labadaasi dal
taliyaha cirka ciidamada dalka Itoobiya ayaa waxa uu sheegay inay burburiyeen dagaalkii halkaasi waa hub badan iyo saad badan halkaas u yaalay laakiin afayeen u hadlay ciidamada Tigrayga oo ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in gabi ahaanba ay iska caabiyeen ciidamada Itoobiya dad badan ay ka dileen waa sida uu sheegay dalka Tigrayga waa dadka Tigrayga inay iska caabin doonaan duulaanka lagu soo qaaday waa hadalka u dhigay afayeenka xisbiga TPLF ee ka armiya ururka gobolka Tigrayga madaxweynaha dooran ee Mareykanka Joe Biden ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in gabi ahaanba uu isagu la socon doono ama uu baabi'in doono waxyaalihii khaladaadkii uu sameeyay madaxweynaha hore ee Mareykanka Donald Trump. Biden oo warbaahinta kula hadlay magaalada California ee dalkaasi Mareykanka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in gabi ahaanba uu Mareykanka sumcadiisii hore soo celin doono. Biden ayaa waxa uu sheegay in uu doonayo in shacabka Mareykanka uu mideeyo uuna doonayo inuu ka dhigo hal mid waa siduu hadalka u dhigay Biden ayaa waxa uu codadka ugu badan ka helay baa leeyahay dadka madowga iyo waliba dadka muslimiinta ee ku dhaqan dalkaasi Mareykanka. haweeneyda madaxweynaha ku-xigeenka u ah ka soo jeeda dadka madowga ee Kamala Harris lagu magacaabo ayaa iyana waxa ay shaaca ka qaaday in uu dalka Mareykanka hadda agta saaray wadadii guusha. Biden ayaa waxa uu isna sheegay in shacabka Mareykanka uu gudihiisa marka hore madayn doono kadibna ay u jeesan doonaan bidii istiraatiijiyada caalamka dalkana ay la tartami doonaan waa adduunyada kale waa soo hadalka u dhigay Biden. bishan January ee soo socota ee sanadka 2022 ayaa lagu wadaa inuu xilka la wareego madaxweynaha dooran ee Mareykanka Donald Trump. guud ahaan warkii caalamka aad kala socoteen Abshir Show channelka aan ku dhinaca YouTube-ka iyo waliba page-kayga Abshir Abdi Jaamac Joker waa naga intaas nabadgelyo.